haddii markii hore aan anagu ilduufnay haddaan jidka ku soo dhacnay awoodda shacabkeenuna waatan haddaan u jeedaan marka shacabkaan kaga adkaanaynaa ilaahay idankiis shabaab wuu tegey waa khalaas taariikhdu galay shabaab waa dhammaaday ragga ku guulaystay oo ilaahay ku guuleeyena waa intiinan iyo in la mid ah iyo hoggaamiyaashiinna iyo shacabka Soomaaliyeed waay guul baan marka ku taagannahay waxaan rabaa inaan halkan uga baaqo dadkii reer aadan yabaal ee deegaankan deganaa ee ay khawaarijtu bixiyeen waxaan leenahay u soo noqday guryihiinni waxaan leenahay u soo noqday deegaankiinni waxaan idiin keennay cunno waxaan idiin keennay dawo 4,000 oo qoys cunnadood baan wadnaa hadda waxaan wadnaa dawo biyihii baa laydiin sameeyey noloshii kalena way idiin bilaabanaysaa ku soo noqda deegaankiinna khawaarijta iskaga soo noqda shayaadiinta ka soo noqda u imaada guryihiinna walaaladiin dawladdiinna ciidankiinna dalkiinna u imaada taasaan ugu baaqayaa khawaarijta waa runtiis khawaarijta haddee sida caadiga inoo ah waa wiil Soomaaliyeed oo laakiin shaydaan duufsaday hadduu acuudu billaahi min ashaytaan rajiim yiraahdo shaydaanka iska celiyo oo u soo laabto waa walaalkeen waan soo dhaweynayna waxaan leeyahay warmeydkiina xatal aasimayaane way idin leynayaane dhaawac idinku dilayaane soo noqda u imaada dadkiina waa la idin soo dhaweynaa idinka oo sharaf leh dadkiina dhex joogi doontaa iskuulka la furi caafimaadkii baa la furi doonaa haddii ilaahay yiraahdo horumar baa bilaabanaya hadda waxaan soo dhagax dhignay airportka magaalada waxaan ugu baaqayaa reer aadan yabaal oo adduunka kala jooga muqdisho jooga meel kasta jooga magaaladan waxay rabtaa in la camiro waxay rabtaa icaadatu al-i'maar waxay rabtaa wixii ay ahaan jirtay in lagu soo celiyo waxaan rabaa inay ka soo qayb qaataan si xoog leh oo ayaga laftooda ku soo noqdaan oo ay nabadda ka qayb qaataan iyo horumarka iyo dhisidda magaaladan taariikhda